munaasabadan oo ahayd mid ballaaran ayaa ujeedkeedu ahaa taageero ay xisbiga kulmiye u muujiyeen garabkii toosinta ee xisbiga waddani oo ay horkacaysa marwahinda jaamac gaani oo hadda ku biiray xisbiga talada dalka iyo kulmiye xafladan oo habeenkii xalay ahaa ka qabsoontay hotel Nastoox ee magaalada Burco ayaa waxa ka soo qayb galay taageerayaal aad u tiro badan oo ay horkacayso marwahinda jaamac gaani mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka Togdheer iyo marti sharaf kale ugu horreyn qaar ka mid ah taageerayaasha ee horkacayso marwahinda jaamac gaani oo munaasabada ka hadlay ayaa cadeeyay inay taageero lixaad la garab taagan yihiin xisbiga talada dalka Soomaaliland haye kulmiye shalay waxaanu la shaqeynaynay cirro maanta waxaanu la shaqeynaynaa mujaahid Muuse Biixi Cabdi sida daraadeed ayaanu waxaanu ku noqonay wadani annagoo isdiri war magacan wadani markaanu eegnay uu noo dhadhamay laakiin wadanninimadii iyo magacan guudka ku yaala ee wadani aanu weylay markaanu dhex galnay ee ay tahay geed baa soo hadoodilan walaalayaal socodka ma siino walaalayaal codka ma siino walaalayaal meenu siina qoftooda ku maqan walaalayaal meenu siina qoftooda ku maqan Muuse Biixi Cabdi dalkiina la jooga waxaynu qabnaba og yahay laga bilaabo maanta Muuseenu nahay indalul hogaankii xisbiga haatay waygiye wardaaxay hangala soo riday halintay timiye wardaaxay hangala soo riday halintay timiye hankareeri saaqba istiri hadafka gaadhsiiye huway harumarkoodi iyo wanaag la hindisaysay halkii bay kahaneedayaan qarhalowsaniye balse waxaan jeclaan lahaa inaan idin sheego garabkani waxa weeyaan garabkii maxay toolay koobsaday amaantii ahayd kun haddaan u hayn kulmiye aanu nahay halkan shalay ta doorbiday inaan maanta diidaa waa ii damiir xumo marwahinda jaamac gaani oo dhankeeda munaasabada hadal ka soo jeedisay ayaa ka hadashay sababaha ay uga baxday xisbiga mucaaradka ee waddani waxaan cadaynayaa inaanu jirin shakhsi aan uga baxay xisbiga mucaaradka ee waddani ilaa iyo maamul xumada uu xisbigu la yimi mooyaane qof aan uga baxay ma jiro sababtoo markii hore qof aan u galay ma jiro anaa shakhsiyadayda u galay kadibna waxaan ogaaday inaanu hanan karin masiirka ummadda aniguna ay dambi ugu tahay inaan qaranka reer Soomaaliland ee dhibaatada iyo halaaga badan loo soo maray aan khiyaameeyo oo cid aan ogahay aanay hanan karin aan gacanta u geliyo waxaan ogaaday oo aan si xaqiiqa oo markhaatiyaal leh aanu cadaynayo in aanu xisbiga mucaaradka ah ee waddani qarannimada Soomaaliland jiritaankeeda iyo itiraafkeeda marnaba aanu ahayn mid ku hamiyaya ama ku fakaraya ama meel marin doona inaanu ahayn baan ogaaday gudoomiyahaygii shalay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi markuu dalka Mareykanka tagay waraysigu bixiyay waraysiga waxa lagu weydiiyay 18 May iyo 26 Juun keebaa mudan wuxuu sheegay gudoomiyahaygii shalay inay mudan tahay 26 Juun haddaba waxa isweydiin mudan 26 Juun waxaynu ka xorownay gumaysigii Ingiriiska haddaba 18 May kumanaan baynu naftoodii u weynay kumanaan baa u agoomoobay kumanaan baa asay u qaaday ma dadkeenni baa khalad ku dhintay oo haddaba aan waxba ka maqnayn waa su'aal in la isweydiiyo u baahan waxaan idin leeyahay sida aad maanta aniga garabka toosinta igu taageerteen xisbiga kulmiye codkiina ugu taageera mudane Muuse Biixi gabagabadina waxa munaasabada soo afmeeray mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka Togdheer waxaanay mahadcelin ballaaran u jeediyeen marwahinda jaamac gaani iyo taageerayaashan ay horkacayso ee ku biiray xisbiga talada dalka haye ee kulmiye markay waddani joogtay dadka qure aan iska eegi jirnay soo jirnay tolo maanta maxay ku sameeyeen ayay hindiyahay marka maanta inay kulmiye nala wado aad bay noo farxad gelinaysaa hinda oo runtii haliyay ka tirsan haliyada Soomaaliland oo runtii qof qiimo badan ku leh waddanka Soomaaliland ku leh oo runtii ku soo biirka xisbiga kulmiye oo markii horeba ay ka tirsanayd muddo si ay ku maqnayd siday sheegtay xisbiga waddani aanu aad ugu faraxsanahay ku soo biiristeeda Axmed Saleebaan Carab Axmed Kaafi Bulsha TV Burco